Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta soo dhawaada. Maanta waxaa idin wadaa rooti oo dhexdiisa cheese ku jiro iyo hilib iyo spinach oo aad u fudud suubiskiisa. Waa casho oo fudud oo caruurtaadana aad uga helayiin maasha Allah. Waa rooti jilaac oo soft ah oona waqti badan kaa qaadanaynin suubiskiisa insha Allah. Marka hadda guda galeynaa sidaan u suubiyey. Hadda meeshan waxaa ku shubaa hal kab oo biyo qandac ah. Kabacdi waxaan ku daraa 2 qaado oo levito ama fixiso. Waxaa kale ku daraa 2 qaado oo sokor ah. Markaas kastaana isku qasaa. Si fiican u qasaa markaas waxaa sugaa 5 daqiiqo. 5 daqiiqo kadib waa kana diyaar waaye. Marka waxaan ku shubaa hal xabo stick oo buure ah oo soo qandiciyay iyo 2 xabo ukun. Markaas intaana isku qasaa si fiican u qasaa also waxaan ku daraa kale caano. 1 kab caano waaye oo qandac ah. Intaas markaas ku qaso waxaan ku daraa kale 6 kab oo bur ah. Buuraha si fiican ma u dhalaasana as you can see. Wax yar ku soo hireeri laakiin burka ku dhex qasay soo dhib ma lahan. Markaas first waxaan suubinaa 5 kab ku shubaa. Markaas isku qasaa insha Allah. Kabacdi kabka ugu dambeeya hadana gacanta markaasaan markii gacanta ku qasaa yacni kabka 6aad ku shubaa insha Allah. Markaas hadda burkiya isku keenoyaa sidoo gacanta iyaga noqonin dhegdhega. Markaas spatula la qasaya. Markaas waa isku imaaday. Kabka 6aad ku daray sidaan u soo baxay waa kaas. Marka alaabtii dhexda la geliyay hilibkii aan diyaarinaa. Wax yar saliida meeshaan ku shubay iyo basal yar yar soo jarjaray. Hadda basasha jeclaan basasha waa gaday kartaa. Ama hadday ilmahaada jecelihiin qudaartaas waa ku dari kartaa maasha Allah. Mor macaan oo sii noqonaya yacni mor nafaqo. Marka ani hadda hilibkii iyo basashii waa kaas waa diyaariyay 2 qaado oo yaanyo shiishid ku daraa. Yaanyo badan ma u baahno because inuu wax noqdo maraq. Waa kaas wax yar cusbo ku daraa. Yaanyo shiishidka bas hadda ku jiro. Soo cusbo filfil oo ujeedin wax yar leh ku darooyaa because hilib badan ma aha. Qiyaas yar waaye oo family size keena oo deeqaya yacni hadda rootigan ka suubiyo. Waxaan ku darooyaa kale xawaaji oo jaale ah. Meeshan waan igu soo qoraa insha Allah. Waxaan ku daraa toonta shiidan ama oo powder ka onion powder. Markaas waxaan kale ku daraa paprika. Thyme ku daraa. Italian seasoning. Markaas intaas waaye. Maasha Allah dhadhan oo unique oo yeelana markaas intaan isku dartid. Iyo kabsar caleen. Kabsar caleenta waa optional. Hadda jecleen waa ka day kartaa. oo ujeedii meesha biyo ma lahan diyaar oo noqday maasha Allah rootigiina hadda waa diyaar 1 saac ka soo wareegtay ujeedin soft waaye
marka 4 meel u jaraa 4 qayb kabacdi yaa kuskuusaa. rootigan waxa waaye sida aad oo jeceshaa u subsan kartaa. haddaad rabto waa fidinee kii caadiga oo dheerdheerka ahayna waa la subi karaa. alaabtiisa filinkiisa gelinee kabacdi waa ku duubee. ama sidan oo fudud oo easy-ga ani u subinooyo ama simply kuskuuska kuwa dhexdiisa filinka laga subiyo oo yacni hilibkii iyo cheese-kii waxaas dhan waa ku xiree saana kuskuusee. marka noocaasna waa u subsan kartaa insha allah. cheese-ka noocaana ku fiican mozzarella cheese oo kan freshka ah ama kan baa isticmaal kartaa. dhexdiisa spinach ku shubayaa. khudaarta choice-kaada nooca aad jeceshahay oo ku shub kartaa ama family-kiina jecel yihiin. waxaa kaloo ku fiican yahay ukun marka aad karisid waa la jarjaraa dhexdiisa lagu shubaa kaasna ku fiican yahay. kuley ani maanta quick and easy dinner waaye so waqti badan jikada ku qaadanaynin yani. waa kaas hilibkii saare dhinac qayb ka saare. haddaa hilib jeclen chicken saari kartaa ama just vegetable iyo cheese bas kaligiisna waa la geli karaa. maasha allah ku fiican yahay. waa kana cheese-ka 2 xabo iyo spinach-ka waa kusoo daboolaa. markaas afka fargeeta le ku riixriixooya afka sidoo oo kala foqin. meeshaan boolkan waxaa kusoo luleeyay buuro 1 xabo stick iyo 2 xabo tuun ku shubay iyo parsley oo engega kaasa isku qasooyaa saddexdaas. waa kaas sida aan kor rootiga ugu mariyo markii ovenka laga soo bixiyo bohora laga marinaa. waa kaas xaabta diyaar waaye marka bararkiyaa marinaa hadda. maasha allah caraf koley intuu kuleel yahay la rabaa hore laga mariyo. markaas dhexdiisana waa jarwani tasooyaa marka kuleel waa laakiin insha allah saxankaa saaraa. waa kaas asxaabta sidaan noogu soo baxay ugu dambeyntii. maasha allah waa casho fudud oo waqti badan ka qaadanaynin. ilmahadan waa ka helayiin ama adi naftirkaada jeclaanaya. maasha allah aad u macaan badan yahay. I hope inaa ka hesheen insha allah. haddaa igu cusub tahay please subscribe ii riix sidaa ula socotid videoyaalkayga kale oo soo geli doono insha allah. taa hore unala joogtana aad aan igu mahad celinaa. please like garee share and comment. thank you so much for watching.